doorasho dadka kuraasta ay ku qanacsan yihiin qabta oo aan la daba taagnayn oo laga daba qaylinayo waxaan ognahay meel ay ku shaqeeysan xitaa inaan hadda la ogeyn waxaan u dirayaa madaxweynaha dawladda Puntland baaq waan u dirayaa madaxweyne waxa shaki ku jirin oo muuqata cidda farta lagu gudayo cidda guddiga doorashada daba taagan cidda ma garanaysaa farta lagu fiiqayaa waa xukuumaddaada iyo adiga way waxa muuqata oo meel walba taal madaxweynuhu isaga ayaa doorashada daba taagan waxaan la soconaa wixii garowe ka soo dhacay waxaan la soconaa waxa hadda halka ka socda waxaan ku leenahay madaxweyne haddaad madaxweyne tahay sidaas ma aha sidii saxda ahayd oo aad wax ku heli lahayd ma aha waxaan qabnaa madaxweyne waxa wax ku helaysaa adigoo siyaasiyiinta iyo khiyaarta iyo dadka kuraasta metela adigoo la tacaamila la macaamila ma garanaysaa doorasho xalaala oo sharaf leh oo karaamo leh qabta maanta joogta berina cid kale joog doonta waxaan ku leenahay marka fool xumayay iyo magac xumayay adiga ka raacay horta taas waxaan rabaa inaan madaxweynaha fariinta u diro waxaan rabaa inaan ku xajiyo guddiga doorashooyinka waxa suuqa yaal ummadda kama qarsoona shacabkuna waa ogyihiin waxa suuqa taala inaad doorashadii iyo kuraastii aad u qoraysaan dadka liiskeennu ku qoran oo la sheegayo oo aan qarsanayn waxaan isleenahay arrintaas waa fool xumo weyn odayaal baa tihiin waxaan codkayga ku biirinayaa akhyaar baa tihiin taariikhdu magac xumo yeynii qori doorasho dadka kuraasta ay ku qanacsan yihiin qabta oo aan la daba taagnayn oo laga daba qaylinayo waxaan ognahay meel ay ku shaqeeysan xitaa inaan hadda la ogeyn iyo meel ay kaga sugan tihiin magaalada Boosaaso waxa loo baahan yahay inaad doorasho ay ugu horeyso odayaasha dadka kuraasta leh inaad meesha leeynu ku imaan karo xafiisyadu inuu ugu furan yihiin ummaddu inay imaan karto waxaan sidoo kale aan aad iyo aad xoog ugu wareejinayo ugu biirinayaa dareenkayga goobta doorashadu waa inay noqotaa goob la isla ogol yahay waa inay noqotaa goob amnigeeda la isla ogol yahay waa inay noqotaa goob xalaal in maalin baa la qashaay xalaal doorashadu inay uga dhacdo u qalanto way iyadana intaasaan leeyahay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u baaqo shacabka Puntland waxaan ugu baaqayaa inaad wada jirkiina ilaalisaan in la ilaaliyo nabadgelyada guud in wixii shamcadda iyo karaamada dadka reer Puntland ka hor imaanaya inaad ka soo horjeesataan aad iyo aad baa u mahadsantihiin